ururada aan dawliga ahayn ee ka howlgala deegaanada Somaliland ee Sonsaf ayaa maanta kulan ballaaran oo lagaga doodayay sidii looga gaashaaman lahaa dhibaatooyinka iyo caqabadaha ka hor iman kara doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dalka dhawaan ka qabsoomi doona ayaa lagu qabtay magaalada Boorama kulankaasi oo ay ka qayb qaadanayeen ururada siyaasadda saddexda xisbi qaran ururada bulshada noocyadooda kala duwan ee haweenka culimaadudiinka iyo jaamacadaha kala duwan ee magaalada Boorama ayaa socon doona muddo 3 maalmood ah waxaana ka qayb qaadanaya 90 xubnood oo kala duwan waxaana muddada uu socdo lagu falanqayn doona sidii caqabadahaasi loo soo bandhigi lahaa si inta aanay doorashada la gaadhin looga sii hortago wixii iman kara waxaana furitaankiisii ka hadlay gudoomiyaha ururka aan dawliga ahayn ee Sonsaf Axmed Maxamed Maxamuud waxaana uu ka waramay ujeedada kulankaasi marka inaan eegno maxaa doorashooyinka caqabad ka hor iman kara maadaama imika xisbiye la furay ururo fara badan oo siyaasadda jiraan xisbiyadii hore jiraan koritaanka siyaasadda iyo bulshadaba ay intaa socoto maxaa ka hor iman kara caqabado inagoo markaas geesa badan iska taagana marka taa waxa ka fursan weyday in bulshada la wadaago haday tahay culimaadudiinka madax dhaqameedka haweenka dhalinyarada aqoon-yahanka asxaabta qaranka waxa iyaguna furitaankii kulankaasi ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka ee degmada Boorama Muumin Gadiid Cumar iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal waxaana ay kula dardaarmeen ka qaybgalayaasha kulankaasi inay si fiican uga doodaan caqabadaha ka hor iman doona doorashooyinka dhawaan soo socda iman kara aad caloosha ku haysaan doorashooyinka soo socda inaad bandhigtaan alcilmi bayna talaamiid baa la idhaha cilmiga ardayda dhexdooda ku jira waxaa ka hor imanaya cilmiga imika dhexdiina ku jira hadday xisbiyada tahay hadday xildhibaanadii doorashada imika kuraasta ku fadhiya ama doorashada ka soo qayb galay waana kulankii ugu horeeyay ee noociisa ah ee lagaga doodo caqabadaha ka hor iman doona doorashooyinka golayaasha deegaanka ee dhawaan ka qabsoomi doona dalka Somaliland waa caafi shabakada wararka ee magaalada Boorama.